هيل ولا ما تعالي هيل دجان بان ساكو بدلي هيل دجان أيها هذا الله أيها يعوه لي هيل دجان كمان تعشيجيو أيها رنتي دبول للصيد تاسلوا ما صدحات وإنه يقول لي إلى للصينو مدحوين عبد الرحمن هي مدحوين كوحيين كيسة oo aan maanta 10 farood iyo intaan kari karnaba aan ka hawlgelin maanta oo ay taariikhdu sidaan hore u sheegay tahay waxa aan ugu baaqayaa markaan arkay markaan darsay markaan doorasay siyaasadda dalka oo bilaabmay mooshinkii doorashada markaan eegnay waxyaabihii hore ee dalka ka soo dhacay markaan eegnay doorashooyinka qaabkii loo gelayay waxaan marka hore soo dhaweynayaa musharaxiinta iyo guddoomiyeyaasha xusbiyadu sida ay yidhaahdeen si hufan ha loo tartamo in si hufan loo tartamo bilaa turxaani waxay keenaysaa oo nin waliba ajandaha uu ku howlgelayo uu soo dhigto waxay keenaysaa in doorasho hufan oo habaysan inoo qabsato mar labaad waxaan dhammaan ninbaa wuxuu yidhi ma soo waabahayo waxaan magan ka soo gaadhay rag waxaan ku maamulay aqaanamo ku maamuusi mase inaanu nahay tollimana meerto noo tahay anigoo hordhac ka dhiganaya gabayga iyo odoroska siyaasadeed ee xilligan waxaan ugu baaqayaa dhammaan deegaanada 6 gobol iyo gabiley iyo gobollada kale ee biida dalka oo dhan iyo qurbo jooga jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan deegaanada saaxil togdheer iyo sheekh waxaan u dhikaleer garaynayaa u cadaynayaa maanta oo ay taariikhdu intaa tahay inaan markaan darisnay baadhnay danta dalku halkay ku jirto eegnay inaan hormood ugu ahay oo calanka hor qaadi doono sidaan u dhisi lahayn musharax cabdiraxmaan ciro oo maanta aanu samayn doono hiil degaan haddii codkayagii hore 2017 uu ahaa hiil waa noqday oo aanu jeegaan ahayn inaanu soo celin doono taayadii hore oo hiil degaan oo dani laga dhaxayso oo runtii deymo badanna nalagu lahaa haddaan soo qaato xilligii cabdiraxmaan tuur 33 baan ku codeynaynay 31 baan u codeeyey waxba kuma naandarsan ilaahay wuxuu hibo ugu daray cabdiraxmaan oo markaa dacaayadu ay iska badnayd xafiilta kuu iska yimaadaan dhalinyarada marka doorashooyinka laakiin waxa weeyaan danta waxa meesha ka soo baxay iyo sida la isugu raaco ayuunbay idin qaadan doontaan waxaan uga sheekaynayaa taariikhda hore intii Soomaaliland cabdiraxmaan oo markaasi SNMta ku soo biiray dalli gubadle waa deegaanada ka soo jeedaan la hadlayaa oo aan tusinayaa dantu maanta halkay ku jirto iyo hiil deegaan inaanu noqono oo aanu maanta cabdiraxmaan ku tuntuusano waxa weeyaan dawladdaasi waxba kuma naandarsan ninkii cabdiraxmaan ee lahaa imikuu ka yimi bahashii hadduu xamarina geenayaa siyaad baluu ku dambeeyey waxay noqotay inuu 9 bilood dalka ku soo galo maantana waxaan ka rajaynaynaa haddana waxa dhacay ishortaagyo dawladeed iyo dabac siyaasadeed oo muddooyin dheer soo rafanayay laakiin waxa ilaahay mahadiya mar walba Soomaaliland waxay ka midaysan tahay ilaalinta dalkan iyo xorriyaddii dhiigga badan u daatay hantida badanina u luntay in ay mar walba tahay ta muqaddaska oo ahayd taa aynu xusaynay 18 May oo isu keentay aan kala aragti ahaano nin waliba wuxuu leeyahay aniga ninka kaga wanaagsan waxa aynu soo galay doorashooyin badan oo dambe haddana cabdiraxmaan baa ku wareejiyey cigaal
golihiisii dhexe halkan buu kaga sii tegey madaxweyne ku-xigeenkiisii muu ka haysan shirkii balligubadle kreditka cabdiraxmaan leeyahay weeye runtii ee hiil degaan weliba maanta inaannu ka abaalguddo anaga oo kale lagu leeyahay inaan dadka jiheeyo halkaasi ayaa lagu soo dhisay markaa waxaana suurtogeliyey madaxweynihii markaa joogay oo arkay duruufta dalka ka taagan inaanu halkaas sii dhaafin karaynin cidi qasabkagamay qaadin inuu ku wareejiyo madaxweyne cigaal dabadii waxa dhacay dad badan oo cadhaysanay inay dayis hortaag sameeyeen waa wax iska caadiya way dhacdaa dawlad aanay ka soo dhicinna ma jirin cigaal baa yimi doorashadii halkan ay isaga iyo saleebaan iyo maxamed xaashi tartameen ayaa ka dambaysay hiil degaan ayaa haddana dhaco cigaal waxa u hiiliyey hiil degaankaa maanta aan sheegayo ayaa runtii dib u dhisay taasina waa amaah saddexaad oo na lagu leeyahay waa markaan degaanka iyaga la hadlayo waxa dhacay doorashadii aynu gallay 2017 oo runtii anaan isfaaninaynin aan ka mid ahaa raggii calanka horsiday hiil walaal siyaasaddu xilli bay leedahay waana isgedgedidaa waxaan markaasi hiil walaal maanta aan leeyahay hiil degaan baan saaka u beddelay waxaan ugu baaqayaa degaamada aan walaalaha nahay dhammaantood oo aan immika waanba bixi doono gobolka togdheer ceerigaabo saaxil ilaa boorame dhammaan 6da gobol iyo gabileyba aan soo mari doono aniga iyo tiimkaygu dibna waxaan ka soo sheegi doonaa goorta aanu hiil walaal oo ay idin arki doontaan inuu dhab noqdo hiil deegaan ayaanu la baxay halku dhegaygu waa hiil deegaan waa mahadsantihiin tankiyu waa inoo innaga iyo mar dambe waxaa kalaanu ugu baaqayaa dhammaan ciddii aanu isku fikirnahay iyo cid kasta oo ka soo jeeda maanta aragtay baahida loo qabo in isbeddel yimaado dalka ee uu ku jiro inay ka badheedhaan howlahaasi inay isugu yimaadaan bisha 5teeda magaalada berbera ee weliba deegaanada aan ka soo jeedo annagoo abuuri doona guddiyo iminka muddo 2 biloodaba ku jirnay shirar googoosa waxaan maanta si cad u dhiklaargaraynaya inaanu dhisayno madaxweyne cabdiraxmaan iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo aan maanta 10 farood iyo intaan kari karnaba aan ka hawlgeli